wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare Cabdilaahi Ibraahim Habane oo weyliyo wasiirka wasaaradda warshadaha Soomaaliland Yuusuf Cismaan Garas ayaa si wadajir waxa uu dhagax dhigeen dhismaha cusub ee Gandhi Library oo laga dhagax dhigay dugsiga Sheekh Bashiir ee magaalada Hargeysa. Munaasabad kooban oo loo sameeyay dhagax dhigga dhismahaasi ayaa ugu horreyn waxaa la kooban ka jeeday isla markaasina si diiran u soo dhaweysay maamulaha dugsiga oo saddex Sheekh Bashiir Marwo Khadra oo tilmaantay in uu wax weyn ka tari doono baahida dhinaca wax akhriska ee ardayda dugsigaasi ku sugan. Axmed Yuusuf Ismaaciil Gandhi oo ah mulkiilaha dhismaha cusub ee library-gaasi ayaa isna tilmaamay in library-gan uu noqon doono mid qaranka u adeega isla markaasina fuliya baahida shacabka. maanta munaasabadan lagu dhagax dhigayo library Gandhi aad iyo aad baan u soo dhaweynaynaa ardayda iyo dadka dadweynuhuba mabsuud bay ka yihiin library-gan. library-gu waxa weeyaan iskuulka Sheekh Bashiir oo iskuul qadiimi ah, waa iskuul maxay intay loogu hortaagay caasimadda Hargeysa, waa iskuul aan cidina maxay intay waxay ku dartay mooyee waxba ka dhimi karin. library-ga Gandhi dawladda Soomaaliland oo madaxweynuhu ugu horeeyo ayaa relocation ku soo sameeyay oo library-gu halkii uu 18 sanood ka furnaa ka soo wareejiyay oo meesha imka arkaysaan ee dhaxliga la sameeyay hadii la yiraahdo u soo raray. marka maanta waa dhagaxdhigii Gandhi Library meeshiisii cusbeed weeyaan. ilaahay ma hadii baa wasiirkii baa jooga waxa runtii nasiib wanaaga in maanta maamulihii iskuulka iyo madaxdii iyo wasiirkiiba ay ka hadlayaan library-ga Gandhi wuxuu ahaa Sheekh Bashiir iskuulka magaciisina lama bedelayo, iskuulka wuxuu ahaa cidna lagama iibinayo. wasiirka wasaaradda warshadaha Soomaaliland Professor Yuusuf Cismaan Garas ayaa shana tilmaamay ahmiyadda ballaaran ee uu yeelan doono bulshada reer Soomaaliland dhismahan cusub ee library-ga ah. gabagabadii wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare Mudane Cabdilaahi Ibraahim Habane ayaa tilmaamay waayihii iyo taariikh nololeedkii kala duwanaa iyo doorkii ay ku lahaayeen qaranka Soomaaliland. Allah naxariistii jannaha ka waraabiye Sheekh Bashiir iyo Gandhi oo tilmaamay in ay ahaayeen laba nin oo qaranka ku weyn isla markaasina aan si dhib yar lagu ilaabi karin. waxaan uu wasiirku tilmaamay in library-gan uu noqon doono mid qaranku uu leeyahay isla markaasina aan si gaar u adeegin. waxa kaloo runtii aanay dadku ka eegin dhinaca wanaagsan, waayo waxay noqonaysaa taariikh dugsigii ugu horreeyay ee Soomaaliland ee yeeshay library. ma laha dugsiyadeennu library kuma dhex yaalaan, marka dugsigu wuxuu nasiib u helayaa inuu library-gi ku dhex yaalo. wada library-gi dugsiguna waa aabba iyo hooyo, waa walaal iyo walaalba isku yiin, waa laba shay oo isku mataana ah. ardaygu library kama maarmo, laakiin duruufteena dhaqaale ayaa keenaysa in aan dugsiyada loo samayn karin library. laakiin maanta dugsiga Sheekh Bashiir wuxuu nasiib u helay inuu waliba library-gi caanka ahaa uu nasiib u helo in lagu dhex taago. ardayduna ay ka faa'iideysanayso, dadweynihii kale oo ka faa'iideysan jireen ay ka faa'iideysanayaan. dawladda ka wada mas'uula wax walba halkan dawladda leh, halkan dawladda lahayd meeshay geynaysa dawladda u mas'uula, xukuumadda ka mas'uula. annaguna amar madaxweynaha ku shaqeynaa. amarkii madaxweynaha horta buuqadan saaka lagu dhagax dhigayaaye cid meeshan bixisay iyo cid ka danaysatay iyo cid ujeeddo gaara ka lihi ma jirto. maslaxad baana loo biday, dadku sidayna u gartaan weeyaan. ragga mas'uuliyiinta qaarkoodna waan isla u fahmaan ee si kale u qaadanaya. arrinta ku saabsan magaca dugsiga Sheekh Bashiir Allah u naxariistay dehliyay Soomaaliland waxa dugsigaas lagu magac daray inta ay Ingiriiska uu inooga tagay ay dawladaheennu u bixiyeen iskuulkii sii kordhay. magacii waa sidii Gandhi Library baa ku soo kordhay oo caruurtu wax ku dhigan doonto. waxbarashada ardayga iyo library-ga ama maktabaduna ma kala maarmaan. gabagabadiina waxaa si rasmi ah loo dhagax dhigay dhismahaasi dugsiga Sheekh Bashiir uu yeelan doono ee Gandhi Library.